بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، waxaan kusoo jirnay kitaabkii minhaajka ee uu qoray imaamu nawowi raxmatullaahi tacaala calayh. darsigeenu maanta wuxuu ka bilaaban kitaabka la yidhaha kitaabu liqraar, qiridda qofka oo wax qira oo naftiisa wax ku qira. taas ayuu darsigeenu maanta ku saabsan yahay. marka sheekhu wuxuu yidhi sharaxa, huwa luqatan ibn xajar, huwa luqatan al-ithbaatu, xagga luqada waxaa la yidhaha sugid, min qarra habata ayaa laga soo qaatay. wa sharcan ikhbaarun khaasun, waa war gooni ah can xaqin saabiqin cala almukhbiri, yacni war horeeyey oo qofka waramaya lagu leeyahay, xaq lagu leeyahay oo laga warramo weye. fain kaana lahu calaa gayrihi fa dacwa, haddii qofku waxa uu waramayo xaq qof kale dushiisa saaran uu ka sheekaynayo, dacwa la yidhaha. qofku markuu dacwoonayo qof kale uu dacweynayo, dee xaq qof lagu leeyahy uu sheegayaa kale. ow ligayrihi calaa gayrihi, xaq qof kale uu leeyahay qof kalena uu ku leeyahay haddii uu yahay makhraati, fa shahaadatu makhraati baa layidhaha. allahuma salli calaa muxamed. ama markaa khaas baan idhi maxaa ama alcaam can maxsuusin fa huwa alriwaaya, haddii oo wax masmuuc oo la maqlayo caam ah qofku uu sheegayo, riwaaya ayaa la yidhaha. wa can xukmin sharciyin, haddii qofku uu sheegayo xukm sharciga, fatwa la yidhaha. wa asluhu qabla alijmaac qowluhu tacaala, waxa uu daliila intayn culimmadu isku raacin aayaddii qur-aanka ahayd ee ilaahay uu yidhi shuhadaaa lilaahi walow calaa anfusikum, idinkoo ilaahay dartii u makhraati kacaya walow naftiinaba aad ku makhraati kacdeen. qaala almufasiruuna shahaadatu lmari calaa nafsihi hiya aliqraaru, qofku mufasiriintu waxay yidhaahdeen makhraatiga uu qofku naftiisa ku makhraati kacda macnaheed waxaa weeye inuu wax qiro, xaq lagu lahaa inuu qiro, kaa weeyaan. wa khabaru shaykhayn, xadiidkii bukhaari iyo muslimna waa u daliil. uqdu yaa unaysu ilaa imra'ati haada fain ictarafat farjumhaa, unaysow kalah kan yacni naagtiisa ku kalah. unayskaasi unays binu daxaak alaslamiyi ayuu ahaayo, macduudun fi shaamiyiin ayaa la wariyey inuu shaamiyiinta lagu tiriyo. fain ictarafat hadday qirato zinada, farjumha, markaa dhagax ku dil. wa arkaanuhu arbacatun, muqirun wa muqarun lahu wa muqarun bihi wa siiqatun. arkaantiisu waa afar: muqirun qof wax qiraya, muqarun lahu qof wax loo qirayo, siiqadii iyo muqarun bihi wixii la qirayay. intaas ayuu u kala baxaa. sheekhu muxuu ku horeeyey marka kii ugu horeeyo qofkii wax qirayay ayuu deedna sheekhu ka bilaabay. yasixu, iqraarkii wuu asixi qiridii, min mutlaqi tasarufi, maamulkiisu yacni qof oo uu fasaxan yahay, qof xagga sharciga laga fasaxay inuu wax maamulo. mutlaqu tasaruf, tasaruf waxa wey inaad wax maamusho, wax gado, wax ijaarto, wax soo amaahato, saas oo kale. mutlaqna macnihiisu waxaa weeye qof la fasaxay, muqayad baa kasoo horjeedo, yacni maxjuur aan ahayn ee mutlaqa. yasixu, iqraarkii wuu asixi, min mutlaqi tasarufi, maamulkiisa qof la fasaxay xagga sharciga ayuu ka asaxaya. yani maxaa loo jeedaa? qof mukallafa oo rashiida ayaa loo jeedaa, ka ayuu ka asaxaya. amaa kii kale isaga waxba kama asaxaya weeye, sida sheekhu uu inoo sheegi doono insha allah. allahuma salli calaa muxamed. haddaba haddaynu sidaa nidhi, wa iqraaru sabiyi, sabigii yaraa qiridiisu uu wax qiro walow weligiisuba ha u idnee. walmajnuuni, wa iqraaru lmajnuuni, kii waalaa qiridiisa, laaqin, kii laqwi a wey, waxba laga soo qaadi maayo. laaqin, kii waxba aan laga soo qaadaynin wey. ilmo yaroo sabiya ayaa wuxuu yidhi ninkaasi $1 buu igu leeyahay. ninkii muu qabsanayo muu odhanaya wuu ii qiray, hala ii qoro, maxaa yeele waxa laga soo qaadi maayo. majnuunkii baa yidhi ninkaasi intaasu igu leehoodayna, waxba laga soo qaadi maayo, maxaa yeele waa lisuquudi aqwaalihim
qowlkooda ayaan waxba laga soo qaadaynin sabiga iyo majnuunka oo yacni meesha ka baxsan. fa in iddacaa haddaba hadduu sheegto sabigii ama sabiyadii albuluuqa qaangaadh bilixtilaami ixtilaam inay ku qaangaadheen. ixtilaam maxaa hadda looga jeedaa nusuululmaniyi mani oo ka timaada, yani ixtilaamka ayaa loo jeedaa, ama isagoo hurda ka timaado oo xulumka isagoo riyooday ka timaado, ama isagoo soo jeedo oo yaqdantanba ka timaadeen. haddaba fa in iddacaa hadduu sheegto sabigii ama sabiyadii albuluuqa qaangaadh bilixtilaami ixtilaam yani isku janaabidaas ay ku qaangaadheen macalimkaani iyadoo ay suurtagal tahay oo 9 sano ay u buuxsantay, sudiqa waa loo rumaynayaa, walaa yuxallafu lana dhaarin maayo. ilmihii baa wuxuu yidhi anigu maaragtay hadda waxbaan dhali karaa oo waan isku janaabay oo anaaba arkay, ama naag gabadhii baa sidaa tidhi 9 sanona way u buuxsantay, sudiqa waa loo rumaynaya. maxaa yeelay liannahu laa yucrafu ilaa min jihatihi, isaga dhinaciisa mooyeen meel kale lagama ogaan karayo. xaydkiina waa lamid a caadatii, iyadana waa lamid wey, lana dhaarin maayo. maxaa yeelay dee hadduu run sheegayo dee looma baahno in la dhaariyo, hadduuna run sheegaynina dee sabi lama dhaariyaba sideedabo. haddii maaragtay dee uu sabi yahay ka soo qaad, dee dhaartiisu ma asaxaysay ka dhigan tahay. allahuma salli calaa muxamed. wa in iddacaa hadduu sheegto ilmihii hu oo qaangaadhkiia bisinni sanad uu ku qaangaadhay hadduu sheegto, duuliba waxaa laga dalbanayaa bibayinatin makhraati baa laga dalbanaya. maxaa yeelay waa lisuhuulati iqaamatiha, yacnaa in makhraati lasoo oogo xilliguu dhashay, yacnaa markii ay eegaan inuu qaangaadho da uu ku qaangaadho caddaynayso, guud ahaan marka la eego wax sahlan weeyaan, marka wax dhiba iyada kuma sugno. allahuma salli calaa muxamed. wasafiihi buu uri sheekhu, safiihi iyo walmuflisu kii caydhoobay labadaasoo maxjuuru caleyha laga wadaa. sabaqa xukmu iqraarihima, qiridooda xukumkooda wuu inoo soo hormaray, baabuliqraar ayuu inoogu soo hormaray. safiiha waxaa loo jeedaa kii oo maalka dee ku ciyaarayay ee xaaraamta ku bixinayay oo maxjuuru caleyhi laga dhigay, qaadigu ka dhigay, iyo mufliskii maxjuuru caleyhi laga dhigay. haddii aan laga dhigin safiih muhmalaa la yidhaahdaayo dadka kale unbuu la mid yahay. xukunkooda waa inoo soo dhaqay, xagga u raadsa buu sheekhu inoo soo hormaray. oo markaa waxna waa la aqbali, waxna lama aqbalay ka dhigan tahay. wa yuqbalu waa la aqbali iqraaru raqiiqi, addoonkii qiridiisa, bimuujibi cuquubatin, cuquubo wax waajibiya uu qiro. addoon baa wuxuu yidhi zinuu qiray, oo markaa dee xad bay waajibinaysaa. allahuma salli calaa muxamed. ama zino oo in dhagax lagu dilo waajibinaysa ayuu qirtay. khamre inuu cabay buu qirtay. inuu waxaday oo qadar gacanta loo goynayo uu waxaday buu qirtay. waa la aqbalayaa taa iyada. maxaa yeelay waa libucdi tuhmati fiih, wax tuhumo oo lagu tuhumo ayaa fog, oo ilan cuquubo unbuu waxaan ka helayahay. wax kale uu ka helayo oo ama sayidkiisa uu ku dhibayo ama cid kale uu ku dhibayo meeshii ma taalo, markaa tuhma ma taalo, waa la aqbalaya. allahuma salli calaa muxamed. walow aqara hadduu qiro addoonkii bidayni jinaayatin waxyeello daynteed, waxyeellada oo laa tuujibu cuquubatan, cuquube aan waajibinaynin, fakadabahu sayidu, sayidkuna uu beeniyo, tacallaqa wuxuu xaqaasi ku tacalluqi bidimatihi, dimadiisa, duuna raqabatihi, qoortiisa ku tacalluqi maayo. sheekhu hadde kitaabku markuu qorayay addoommo ayaa meel walba joogay qarnigiisa imaamu nawowi raxmatullaahi tacaala caleyh. saa darteed buu tusaalooyinka in badan aad ugu arkaysaan addoon iyo addoono mashaakilkooda badnaa. addoonkiibaa muxuu qiray bidayni jinaayati, wuxuu yidhi ninkaa hebela wuxuu igu leeyahay $1 kasoo qaada, hadda inay addoon joogo kale $1 buu igu leeyaho, oo muxuu ka waajibay waxyeello aan gaadhsiiyey weeye. waxyeello aan gaadhsiiyey oo si khada ah ayaan waxyeello u gaadhsiiyo, markii la xukumayna intaasay noqotay. ama ma ahe xoolaan ka dhacay, ama ma ahe xoolo uu lahaa ayaan baabiiyey. allahuma
allahuma salli calaa muxamed oo markaa oo jinaaye saasoo kale. sayidkiina wuu beeniyo wuxuu yihi waxba kama jiro ama meehe wuu ka aamusay. tacallaqa bidimatihi, iqraarkiisa waa la aqbali, laakiin xaqu xagee buu tacalluqi bidimatihi macnihiisa waxaa weeye markuu xoroobo kabacdi ayaa loo raacay qoori. raqabatihina waa wixii hadda loo gadayo ayaa laga wadaa. marka duuna raqabatihi, qoortiisa ilan sayidka iska leh kuma tacalluqayso. maxaa yeelay waa lituhmati, meeshii tuhma ku jirta inuu leeyahay dhib ninkan sayidka taas ayaa dhici karta. wa in aqara hadduu qiro bidayni mucaamalatin, mucaamalo daynteed, mucaamalo dayn oo mucaamalo ka dhashay wuxuu gada iyo wuxuu siiyo saasoo kale, lam yuqbal la aqbali maayo cala sayidi, loo aqbali maayo in lam yakun hadduuna ahayn ma'duunan mid loo idnay lahu isaga fi tijaarati, tijaarada loo idnay. wa yuqbalu waa la aqbali iqraarkiisa dayn uu qiro, dayntii mucaamalada in kaana haddii uu yahay ma'duunu tijaara, haddii uu yahay. hadduu yidhaahdo ninka hebelaa dayn igula waxbaan kala gadanay, waa la eegayaa ninkani inuu yahay ma'duunu tijaaro, nin tijaarada loo idnay oo sayidku uu idnay inuu wax gado wax biiciyo, iyo inuunan ahayn. hadduuna ahayn la aqbali maayo. maxaa yeelay waa litaksiiri mucaamalatihi, qofkii la mucaamalooday isagoon ma'duun ahayn ayaa gaboodfal sameeyey. haddii laakiin ma'duunu tijaaro uu yahay waa la aqbalaya. maxaa yeelay waa liqudratihi cala alinshaai alaan, ilan haddaba wuu bilaabi karaayo idan buu u qabaa wixii, marka saa darteed waa la aqbalayaa. allahuma salli calaa muxamed. wa yu-addii markuu ma'duunu tijaaro yahay wuu gudi wixii ku waajibay min kasbihi shaqadiisa iyo wamaa fii yadihi waxuu gacanta ku hayo oo xoolaha sayidka ah, sidii hore baanu soo marnay ayuu ka gudaya. wayasixu waxaa asixi iqraarulmariidi, qofkii xanuunsanayey inuu wax qiro, maradalmowti xanuunsanayey, maradkii uu dhintay xanuunsanayey, liajnabiyin qof ajnabiya inuu wax u qiro, taa way ansaxaysaa. allahuma salli calaa muxamed. ninbaa isagoo xanuunku u dhiman doono ku sugan baa wuxuu yihi ninkaa hebela intaasoo kun buu igu leeyahay hala ogaado ayuu yidhi. waa la aqbalayaa ijmaacan taa iyada. waana qof ajnabi, waxaa laga wadaa qof aan dhexalkiisa waxba ku lahayn, taa waa khilaaf la-aan. wakadaa waxaa lamida liwaarithin, qof oo isaga dhexalkiisa leh hadduu wax u qirana way asaxaysaa xilligaa uu dhimanayo, oo iqraarka waxbaa laga soo qaadayaa. allahuma salli calaa muxamed. hadduu dayn uu u qiro waa la aqbalayaa taa iyada ana sida raajixa ah. allahuma salli cala almadhabi qawi haddii aan qaban. inta kaleoo dhexalkiisa le hadday doonaan haba beeniyeen ha ku hor yimaadeen. maxaa yeelay culimmadu leeyihiin liannahu intahaa ilaa xaalatin yasduqu fiiha alkaadibu wayatuubu lfaajiru. ninkani wuxuu ku sugan yahay markaa iyada ee uu arkay xaqiiqadii ee inuu dhimanayo uu yaqiinsaday. xaalo wuxuu ku sugan yahay xaaladii oo qofka beenaalaha uu runta sheegi jiray, qofka faajirka ana uu toobad keeni jiray ayuu ku sugan yahay. saa darteed lama tuhmaysanayo inuu been sheegi, lagu tuhmi maayo. walow aqara hadduu qiro qofkii fii sixatihi isagoo caafimaad qaba bidaynin dayn hadduu qof u qiro, wa fii maradihi isagoo xanuunsanna liaakhara qof kale uu wax u qiro. isagoo caafimaad qaba qof buu dayn u qiro yiri kun buu igu leeyahay, isagoo xanuunsanayana liaakhara lishaksin aakhara qof kale ayuu u qiray. lam yuqadam la hormarin maayo alawalu ka hore, ka dambe laga hormarin maayo, labadaasi waa isku mid buu sheeku leeyahay. isagoo xanuunsanaya ayuuna yidhi ninkaa kun buu igu leeyahay, isagoo caafimaad qaba hadda ka horna nin kale ayuu yidhi kun buu igu leeyahay. xoolihiina kun unba weeyo oo 2 kun uma wada dhigmaan. ilan lam yuqadam waxaa laga wadaa haddii xoolihii ayna ku wada filayn. allahuma salli calaa maxamed. la odhan maayo kanuu isagoo caafimaad qaba ayuu ku yeeshay isaga ha lagu hormariyo, la odhan maayo waa loo qaybinayaa. haddii laakiin ku wada filan yahay hadalba ma imaayo, mid walba dee wixiisii ayaa la siinaya. saasi ka dhigantay haddii meesha ayna ku filayn xoolihii kii hore la hormarin maayo, ee waa isku mid. lam yuqadam alawal bal humaa sawaaun, waa isku mid bay ka dhiganta. walow aqara hadduu qiro fii sixatihi isagoo caafimaad qaba ayuu dayn qiray, ow maradihi ama isagoo xanuunsan buu dayn qiray, yuu u qiray qof buu u qiray lishaksin aakhara,
wa aqara waarisuhu qofkii isaga dhexalkiisa lahaana uu qiro bacda mowtihi markuu dhinto yacni dayn kale liaakhara qof kale uu u qiro lam yuqadam la hormarin maayo alawalu ka hore fil asaxi qawi haddii aan qabanno. ninkii isagoo nool oo ama caafimaad qaba ama xanuunsanaya ayuu yidhi ninkaasi xooluu igu leeyahay. markuu dhintay dadkii dhexalkiisa lahaa ayaa iyana waxay qireen ninkaa hebelana isna inuu dayn ku leeyahay. labadaa nin haddayna xoolihii ku filayn, hadday ku filan yihiin hadalba male, labadoodaba wixii baa la siin, intaan weli dhaxal loo dhexgelin ayaa la siinaya. laakiin haddayna ku filayn oo meesha cidhiidhi yimaado, midkoodna midka kale, kan hadda qofka dhaxal kale uu qiray iyo ku isagu qiray isku mid bay noqonayaanoo waa loo wada qaybinayaa. maxaa yeele liannahu khaliifatu muwarathihi, qofkuu dhaxlaya khaliifkiisii weeye. marka isagii oo kale isagoo qiray unbay marka ay ka dhigan tahay. allahuma salli calaa muxamed. walaa yasixu asixi maayo iqraaru mukrahin, qof la dirqiyey iqraarkiisu asixi maayo. maxaa xagga kusoo marnay qofka muqirkee wax qiraya shuruuddiisa waxaa ka mid ah yani idlaaqu tasaruf, mutlaqu tasaruf, maamulkiisa qofuu fasaxan yahay xagga shareecada oo majnuun iyo sabi iyo aan ahayn. qofka wax qiraya waxaasa laygu leeyahay odhanaya, taasaa shardi ah. shardi labaadna meeshan maa maxay? walaa yasixu iqraaru mukrahin, qofka la dirqiyey ee inta la garaacay xoog iyo dirqi layidhi waryaa qiro, haddii kale korintadaasaan kugu gubayaa, qiro, haddii kale waxaasaa kugu dhacay, deedna yidhi haya qirta, so igama daynaysaa qirta. kaas isagana iqraarkiisu ma asaxayo ayuu yidhi sheekhu. marka iqraarkaasoo allahuma salli calaa maxamed, waa iqraar ikraah oo bigayri xaqin bigayri xaqina waa inuu yahay bigayri xaqin. waxaa jira iqraar oo bigayri xaqin, ikraah dirqin la dirqinayo oo xaq darra iyo mid xaq ah. waxay culimmadu ay leeyihiin midka xaqa ah waxa weeye maalan wuxuu yidhi markii meeshii lasoo joojiyo inta la dacweeyey ninkan baa wuxuu yidhi ninkaasi 10 kun oo euro iga qabaa ama 10 kun oo dollar buu iga qabaa oon ku sheeganayaa. markii arrintii ka jawaab la yidhina wuxuu yidhi ninkaasi lacag buu igu leeyahay. markaasaa waxaa la yidhi wardi caddee, qadarka caddee, shay majhuul, ama wuxuu yidhi ninkaasi xooluu igu leeyahay ayuu iska yidhi war caddee baa la yidhi, may anigu ma caddaynayo, inuu caddeeyo ayuu diiday. kaas oo kale waa ikraah, waa dirqin oo bixaqina, oo ikraahu bigayri xaqina maaha. waa la garaacayaa ilaa uu warka ka caddeeyo, sheeg xoolahan uu kugu leeyahay si loo ogaado waxay yihiin ayaa la odhanaya. ama bigayri xaqin waa in iqraarkii lagu qadaro oo haddana la yidhaahdo wixii naftiisii afka loo geliyo yidhahdo waxaa qiro. allahuma salli calaa muxamed. culimada qaarkood waxay leeyihiin allahuma salli calaa muxamed, ikraah waxaa noqonaysa in la yidhaahdo qiro shaygii naftiisi, laakiin haddii la yidhaahdo inta la garaaco runta sheeg, inta la garaaco garaacidda macnaheedu inay tahay waxaanu kuu garaacaynaa inaad runta sheegto, la ilaahad runta ka sheegayso yani waa lagu garaacayaa, dhagta laga saaro, yani inuu run sheego. haddii saa loo garaaco ikraah ma aha ayay leeyihiin. iqraarkii laguma dirqiyin, maxaa yeelay waxaa la siiyey arrin waasacaa la siiyey oo masalan ilaan wuxuu doonuu samayn karaa, waxyaalo badan buu ku hadli karaa, waxay iyagu doonayaan ma qiran karayo, laakiin runta sheeg unbaa saasaa la yidhi. taa way bannaantay leeyihin in sidaa loo garaaco. oo masalan waxaa lagu tuhmay inuu qof dilay, waxaa lagu tuhmay inuu xoolo dhacay, markaasaa la soo xidhay. taasoo kale in la garaaco, gaar ahaan haddii laga shakiyo oo tuhmo ay timaado, in markaa la yaro garaaco oo waxa loo garaaca inay noqoto inaad runta sheegto, taasaa lagu garaacaya, waa lagaa dayn haddii runta aad sheegto. taa way bannaan tahay bay leeyihin. halkan khilaaf weyn baa culimada ku jira. waxay leeyihin say ku dhici kartaa in la yidhaahdo dirqin ma aha in inta qofkii la garaaco runta sheeg inta la yidhaahdo dirqin ma aha in la yidhahdo say ku dhici kartaa. waa dirqin weeyaani, maxaa yeelay qofkii haddayba runtiiba tahay oo runtii intuu sheegay runta sheeg lagu sii garaacayo miyay noqonaysaa? marka waa ikraaho ma bannaana in la garaaco ayay culimo badan leeyihiin, saasayna ayayna rajahayaan. walaa yasixu asixu maayo iqraaru mukrahin, qofkii la dirqiyey qiridiisu yacni ma asaxayso. wayushtaradu waxaa la shardiyaa fi lmuqari lahu, qofka wax loo qirayo waxaa la shardiyaa oo shardiya
waa ruknigii oo kalaynu ka hadlaynaa muqirkii baan kasoo qofka wax loo qiray ahliyatu istixqaaqi lmuqarib bih shaygan oo la qirayo mudashadiisa inuu ehel u yahay qofka wax loo qirayo shaygan loo qirayo in uu maaragtay ehel u yahay mudashadiisa xagga xisiga ama xagga sharciga labadaba allahuma salli calaa muxamed masala waa ka marka ixtiraaski falow qaala hadduu yidhaahdo markuu wax qirayo qofkii qofku wuxuu ku yidhi lihaadihi daabati sacani daabadi wixii dhulka ku socdo o dhan baa la yidhaha ama faras ama hal ama sac lihaadihi daabati sacan waxaa u sugnaaday calaya aniga dushayda kadaa $1,000 buu igu leeyahay sacani $1,000 buu igu leeyahay hadduu sidaa yidhaah ama gurigani saasoo kale falagwun hadalkaasi waxba kama jiro waa nin hadal aan macno lahayn ku hadlay oo kale wax xuguna uu yeelanaya ma jiro maxaa yeelay dee sacani ehel ma u yahay inuu maaragtay wax uu mulkiyo waa maya wey allahuma salli calaa muxamed waxaa laga soo reebayaa meel waqafah oo kale sidii ama masjid ama guri la waqfay oo kale oo maalan qur-aanka oo kale lagu dhigo madariso waqafah oo kale waqafkan baa waxaa igu leh hadduu dhaho taasoo kale iyadu way noqon kartaa allahuma salli calaa maxamed ayaa culimadu leeyihin marka waa inuu ehel u yahay qofkan wax loo qirayo marka iqraarka yacni wax laga soo qaadayo fa in qaala hadduu yidhaahdo bisababihaa neefkan sababtii limaalikihaa qofkii lahaa wuxuu igu leeyahay waxaaye waxaa wajaba way waajibaysaa maxaa yeele waxaa suurtagala dee neefkan intuu waxyeello gaadhsiiyey waxyeellada inay ka waajibta deedna arrintaa iyada taa yacni ayaa suurtagala wa in qaala hadduu yidhaahdo qofkii wax qirayey lixamdi hinda gabadhaa hinda la yidhaha ilmahay caloosha ku wado waxaa u sugnaaday lixamli hinda kadaa €1 igu leeyahay ama $1 biirthin dhaxaluu dhaxlay awgii oo wasiyatin ama dardaaran loo dardaarmay sababtiibuu igu yeeshay hadduu yidhaah lazimahu maxaa yeele waa arrin suurtagala maxaa yeele waa liimkaani marka qofka la doodayana waa inuu wuxuu noqonayaa weligiisa ilma markuu dhasho ilmahaas qofkii weliga u noqon lahaa aabihii oo kale awowgii oo kale kaas ayaa qofka la doodina marka ayaa noqonaya wa in asnadahu hadduu u tiiriyo ilaa jihatin jaho laa tumkinu fii xaqihi xaqiisa yacni aan suurtagal aan ka dhigaynin falagwun waa hadal iska baadila muxuu yidhi gabadha hinda la yidhaah ilmahay uurka ku wado $1,000 buu igu leehoo uu i amaahiyey saasuu yidhi yacni wuxuu u tiiriyey wa in asnadahu dayntiiba wuxuu u tiiriyey ilaa jahatin laa tumkinu fii xaqihi ilmaha yar xaqiisa aan suurtagal ahayn oo uu i amaahiye oo kale kun uu i amaahiyey falagwun taasi waa baatil maxaa yeelay waa mustaxiil de ilmahan uurka lagu wado inuu kun ku amaahiyey wax suurtagala maaha allahuma salli calaa muxamed wa in adlaqa hadduuna hadalka waxba ku qaydin oo uuna odhanin xoolahaas oo uu dhaxlay xoolahaas oo loo dardaarmay oo qof kale uu u dardaarmay ilaan ilmaha uurka lagu wado waxaa loo dardaarmi karaa uuna odhanina uu iska idlaaqayun oo waxba uuna ku qaydin uuna ku xidhin hadduu yidhaah saxa iqraarkaasi wuu asaxayaa fil adhari qawi haddii aan qabanno waxaana lagu xambaarayaa waxaan suurtagalkeen ka sheekaynay oo inuu dhaxla iyo in loo dardaarmo iyo saas o kale wain kadaba marka hadduu beeniyo almuqaru lahu marka masale kale aan gudubna la soco nin baa nin wax u qiray ninkii uu u qiray baa deedna yidhi maya waxaad qiraysaa anigu melihi kunka aad leedahay waad igu leedahay kugu meli saas oo kale aan eegna marka taasuu sheek ka sheekeynaya wain kadaba hadduu beeniyo almuqaru lahu ninkii wax loo qiray hadduu beeniyo almuqira kii wax u qiray hadduu beeniyo oo iqraarka asalkiisiiba uu ku beeniyo yidhaah waxaad sheegaysaa waxba kama jiro waxaan kugu lehay ma jiro turikal maalu maalkii waa laga tegayaa fii yadihi ninkii wax qiray ee markii horeba hayay gacantiisa ayaa lagaga tegayaa hadduu maal cayn ahaa hadduu dayn ahaana laga dalban maayo fil asaxi qawi haddii aan qaban maxaa yeele maadaama isagu gacanta ku hayo gacan ku hayntu waxay ku tusinaysaa milki xagga daahirka marka dee wax kale oo meesha inuu yimaado oo lagaga qaado mooyeen laga qaadi maayo fain rajaca hadduu noqdo almuqiru ninkii wax qiray fii xaali fain rajaca hadduu noqdo almuqiru ninkii wax qiray fii xaali takdiibihi
beenintiisa xaaladeeda oo waqaala uu yidhaahdo khaladtu waan gafay yacni waxay ahayd khaladaan khaldamay qubila waa la aqbalayaa qowluhu hadalkiisa fila saxi qawi haddii aan qaban masaladii baan weli daba soconnaa markuu intuu nin wax u qiray uu deedna kii uu u qiray uu beeniyey oo uu yidhi war anigu kuguma lihi isagii wax qiray mar labaad fa in rajaca almuqiru kii wax qiray hadduu noqdo fii xaali takdiibihi markii la beeniyey oo la yidhi war waxaa kuguma lihi hadduu mar labaad uu noqdo oo waqaala uu yidhaha khaladtu war waan khaldamay khaladtu ama uu yidhaahdaba maya tacamadtu alkadib beentaba u kas baanu sheegay waxaan laha la qoslo bal hebel baan lahaa wuxuu sameeyey aad aragtid markaad tidhaahdo kun baad igu leedahay hadduu saas oo kale yidhaah laba jeeraba qubila qowluhu hadalkiisa waa la aqbalay fila saxi qawi haddii aan qabanno maxaa yeelay kol haddii ninkii uu wax u qiray uu beeniyey iqraarkii hore halkaas ayuu ku burayba sideedaba marka waa la aqbalayaa weeye kan dambe wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam.